توبر محمد دردب markii hore ku soo dhawaad Astaan Sports sanadkan horyaalkii baa mar labaad la amba qaadaya xilli ciyaareedka 2022 bal kooxda dawladda hoose qaab nooceey ayaa isku diyaariseen horyaalkan kulanka ugu horeeyay inaad la ciyaarsan kooxda waa xul bismillaahir rahmaanir rahiim marka ugu horeysay Ilaahay baa mahad leh marka xiga waan dhawahay waxaan laakiin salaamaya dhammaan bahda TV-ga Astaan TV waxa uu helan horumarka sportka Soomaaliland aad baan ugu hambalyeynaya inta marka laga yimaado diyaar garowga kulli waxba kama duwana sanadii kale oo aan hadda ka horba u diyaar garownay imika diyaar garowga aad buu fiican yahay insha Allah bidin meel karim sanadkan waxaan jeclahay kulli insha Allah inaanu sidii ahaan jirtay in dawladda hoose lagu yaqaan insha Allah inaanu waxa weeye si fiican uga qayb qaadano tartanka sanadkii dhowtoole waxaad shaqaysateen 7 dhibcood idinku kaanta labaad soo fadhiistay bal waxyaabihii la soo oran karo idinku ciyaartooy far badan na keensaday doorkaas oo lacag far badan ku bixiyay waxyaabihii caqabada inagu ahaa inaad kaanta koowaad aad gashaan marka qadarka eebel laga yimaado maxaa la soo oran karaa horta kullayba waxaan qoraal rabbi bay ku socdaan ibn aadanku isagu waxa weeye kullay waxaan qabanayo laakiin hadii aanay waxa weeye xagga rabbi ka dhaboobin waxba kama suurta galan mana waana ku qanacsan natiijadan raantii aanu nimid laakiin ma jirin waxaan oran karo waayo ciyaartooyadu way iska waxa weeyaan ciyaartooyada kale bila mid yihiin waxana nasiibka ka adeega Soomaad garan marka insha Allah sanadkan insha Allah jecelahay inaanu waxa si fiican uga qayb qaadano tartanka marka la eego dhanka suuqa kaliibsiga ciyaartooyada imika la soo wareegteen iyadoo imika ciyaartooyadana qaarkood si joogan ciyaartooyada isku wadatay yihiin kuwii sanadka hore jooga ilaa imika ay si joogan marka idinko imika ciyaartooyo waaweyn oo koox laf dhabar u ahaad keenteen maxay tahay xilligan inaad baahi keentaan ciyaartooyadan imika siibsateen horta kullayba xaaladuhu way kala duwan yihiin ciyaartooyada joogta raantii intoodii badneed way joogtaa hasa ahaatee kullayba baahi walba koox walba iyada ogta baahideeda iyo waxa weeye iyo halka ay uga baahan tahay in ay iska buuxiso kullayba waad ka waraysaa xubno ganax ku maqan way jiraan dad qaar dhaawacana way iska jiraan hasa ahaatee anagu kulle markii horeba talagalkaygu wuxuu ahaa inta sii joogta laftigeeda qaar aanu sii daynay baa jirta oo fasaxnay oo iyaga laftigooda aan u eegnay oo farxadan xaadirka inay teamkan ay sii joogi kareen soo adkaran marka kuwii aanu marka nili ilaa waxa weeye sanadkan teamka lama jaan qaadi karaan soo adkaran oo ade duruufo kala duwan ay kaliftay baa keentay inaan waxa weeye anaguna bedelkooda aan marka aan keensano sanadkan qorshiinu marka muxuu yahay qorshaygu waa qorshe fiican weeye wuxuu qorshaygu yahay insha Allah inaanu ku guuleysano sanadkan koobka muddo imika kooxdeen badan baad joogtay FA Cup-kaad kula guuleystay 2018 koob ay qaadaan kooxdu bal sanadkan hadii ay kooxdu tartamada imika joogtada ay ku guuleysan waydo adigoo ciyaartooyada teel wanaagsan haysta bal qarar nooc la soo dhan karaa oo aad ka qaadan kartaa kooxda taas waxa xilligeeda laga hadli karaa jawaab imika lama laga hordhac kama jawaabi karo xilligeeda ha gaadho وهجاج كلنا كانت وحول وجاهزين بالقبل نوعية وجاهز عيار عادي ما وضع عيارنا وهريال لو تشر بالوضع عيار يا سد عادود عيار دقن ما نسكوت عيارنا إن شاء الله وحن كم جاينا كل بعيار وحويه ساعة شنو ما بنحسن وحويه قيمة له عيار سويد وخوة طامية وطاموي ما سنت شكرا